بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay bishii 11aad February 2020 ayaan muuqaalkan duubayaa oo cadeymo raacsan tahayna ujeedadan u duubaya waxa weeyaan inaan cadeymaha soo bandhigo Soomaalidu soo bandhigo qayb kale af Ingiriis intaan karaankayga afka Ingiriiskana waan soo dhigi doonaa oo iyaduna sidee u gaadho dadka amba dhalinyarta aan af Soomaaliga garanayn amba dadka ajaanibka daneeya arrimaha Soomaaliya iyadana Ingiriis ugu qaban doonaa ujeedadana waxaan u soo duubayaa inaan soo bandhigo dhibaatada ka haysata Soomaalida maxkamadaha meel kasta joogan meel uu Soomaali joogo xaakim yahay iyo dhubta iyo musuqmaasuqa iyo saaqidnimada ka jirta inaan soo bandhigo cadeymo caadiya waafiya oo dadkuna ku qanci doonaan si toosan u arki doontiin haddana meesha baan u socdaa maxkamadda lafteeda u socdaa inay muuqaalka iga horeeyo iyaan insha Allah damcay waxa weeyaan waa arrin soo jiitimaysa 5 sano 5taas sano maxkamaddu ay go'aan qaadan kari weeday 5taas sanana ay maxkamaddu sida aragtideeda tahay ay caad qaadata ay noqotay ilka laadahay kolba ninkii ku soo horeeya xoogaa yaroo shaaha u shuba in arrinteeda halkeeda u xagliso waa dhibaato Soomaalidu haysta laakiin tani aan cadeymo u hayo waa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Somali State of Ethiopia wana jigjiga maxkamadda ayaan soo bandhigi doonaa iyadiyo warqadana oo faylalna waan hayaa jigjigan la tagaya insha Allah bilaa karim marka ku soo dhawaada si degdeg aan u sameeynaya videogan insha Allah inuu waqti kooban aan ku dhameystiro inkuna u daawatiin meel shaqaan jooga meel gaala aan jooga af Soomaalina ku hadlaya dhibta awadeed baan soo koobaya waxa dhacday haddii Ilaahay yiraahdo halkaas ka bilaabi doonta taariikhaha waxaan kaga bilaabinaa horta sida u kala soo horeeyeen sida macquul noqoto bal waxaan idin soo jeedinayo 2015 iyo aabahay dacwad digay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waqtiga waxa aysan jiray nin waalan Cabdi Ilay yala suuqa kalaba inkoo la isbedishay haddana wali maxkamadaha waxa sii jooga sifooyinka aan soo macniyay Cabdi Ilay aan ku sheegay ba imikana dhibtii ba wali sii taala dadka wali sii shaqeeya 2015 aabahay maxkamadda dhigay uu yiri halkan sida ku cad wuxuu dhigay maamulka la faciiso ku dhigay hogaanka nabadgelyada hoggaan nabadgelyo jirtay magaalada la faciisa rugta booliskana uu dhigay rugta booliska imka dhowr goor bay aabahay xidhay magaalada ku xidhay taana insha Allah waa laga daba tagi doonaa kuwi xidhana xaqoogi baa la marin doonaa insha Allah bilaa karim si dadaalkayga aabahay baa dacwiyay iyo si kooban Xaamud aw Maxamed Cali waa walaalkii waa ninkii ugu yaraa Xaamud wuxuu sameeyay inkiisa oo Liibiya lagu xidhay iyo ilaa nin dib haysata waqtiguna waxa la fahmi karaa wuxuu sameeyay aabahay iyo walaalihii iyo maqan iyo beertii xaraashay marka intiisiina uu gaday walaalihii iyo maqanana ugu daray iyagoo maqanana war waxay aabahay baa markaa dacwadda dhigay yiri ma warniyo waa dacwad sahlan maxkamaday walaalkay anakoo maqan iyo beeri xaraashay walaalow na kala bixiya dhowr dacwadood buu dhigay waa 2015 mid waxa ahayd May April halkana wuxuu dhigay maxkamadda sare shariicada gobolka Faafan halkaasi ku socota codsi uu dhigay isagana uu soo caadiyay wuxuu kaloo raaciyay halkay ku taala beertu sida loo iibiyay iyo shuruucda aabahay uu xigsanay waqtidaas u dhigay
halkana walaalkii yaa soo dhigay wuxuu yidhi anigoo xaamud aw maxamed cali waxaan maxkamadda sharafta leh u caddeynayaa sababihii igu kalifay inaan iibiyo dhulbeereedka la wada leeyahay oo ku leenahay 8 qof waana sidan wiil aanan dhalay ayna lagu haysto Liibiya kadib markii aan waayo meel aan wax ka soo qaado ayay igu kaliftay inaan arrintan galo lana tashanin anoo la tashanin ayaan dhibkii iyo culayskii haystay awgeed dhulkii la wada lahaa aan ku khaldamay u cadeeyay kadibna walaalahay ayaa i haysta oo waxoodii doonaya sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta leh walaalkii baa lama maxkamadda sharafta waxa ka codsanaya in kiiskii ay dhibtaadu igu kaliftay la iga cafiyo kadibna maxkamadda sidii u iibsaduhu ahaa lacagtiisii u qaadan lahaa la ii yeelo waan u celinayaa buuri mogta lacagtiisii waa wax cad ma waxbaa arrintaasi aan soo bandhigay wax muddo ku jira aabbahay baa tegey walaalkiisii ka yaraa wuu qirtay labadii maxkamadood way geeyeen waxay dhahan war walaalkay waa gardaro lacagtiina waan u celinaynaa maxkamaday kaalina na kala bixiya very easy arrin sahlan laakiin dhibta marka ay musuq maasuqu jiro halkan bay ku caddaan doontaa maxkamaddu waxay samaysay sida halkaa ku cad May 2015 halkan taariikhan waa taariikh Ethiopia laakiin sida caalamiga waa May 2015 waa 5 sano horteed 4 sano iyo xoogaa dheer maxkamaddu waxay u yeedhay halkaasna kaga soo qabanaya maxkamaddu shareecaddu waxay isku keentay ujeedadii 8 qof haddaba sidaa darteed waxaa logeysiinayaa in kasoo qayb galaan iyadoo kiiska u midaysan yihiin way kasoo qayb galeen waxayna u yeedhay maxkamaddu xaamud buu yeedhay aabbahayna u yeedhay aabbahay baa ku furay waqtigaas u yeedhay waxayna tiri haddaba waxay maxkamaddu mar labaad kugu adkeynaysaa inaad muddada maxkamaddu kugu qabatay aad ku timaado iyadoo haddii aad muddada maxkamaddu kugu qabatay aad iman weydo maxkamaddu dhageysan doonto go-aanna ka soo saari doonto adoo maqan go-aan baa soo saaray baa tiri moogta May 2015 may soo saarin way fadhiisatay waxay qaadatay lama garanayo laakiin sida ay ku cadaysay way isburisay iyadiiba isburisayba go-aanna may qaadan haddana ka soo soco maxkamaddii haddana dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia maxkamadda sare shareecada gobolka Faafan mar labaad iyo u yeedhay ninkan beerta iibsaday lacagta bixiyay ujeedaduna waa yeedhitaan maxkamadda waa lagu yeedhayaa haddaba waxay maxkamaddu ku faraysaa inaad ilaaliso waqtiga lagu qabtay nacam 9 barkan kugu qabanay taariikhduna 2008 waa taariikhda Ethiopia laakiin waa September 2015 bishii 9aad 2015 9 barka hadaad ima weydo go-aan ma qaadanayna waxa la siiyey hala sheeg maxkamadda go-aanna may qaadan waqtigana may fadhiisan haddana waa sidii bas cadeynaysa maxkamadda haddana waa lafteedii yeeritaan maxkamadeed sida qeexayo waxa weeyaan tii hore waqtigeeda waxa sheegana mogtay Ethiopia 08 baa sheegnaysa ma 11 waxa weeyaan waa February 2019 2019 afar sano dabadeed kii unba u yeedhaysa haddana la faciisa jooga laftiisa unba u yeedhaysa aabbahay sidii unbuu 4 sano ninkana beertiis ka qotaa si xaq dariya ku qotaa maxkamadduna wax ka qaadi kar laaday sidaasay kuli ka laaday 9kan kuugu yeedhnay waqtigaasaan kuugu yeedhnay sheekadii sidii haddana halkan oo sax ku qoran haddaba waxay maxkamaddu mar labaad ku faraysaa inaad muddada maxkamadda kugu qabatay aad ku timaado iyadoo haddii aad muddada maxkamadda kugu qabatay aad ima weydo maxkamaddu dhageysan doonto go-aanna ka soo saari doonto adoo maqan go-aanna may soo saarin inay dhageysatay go-aanna may soo saarin dhibta taal waa 2019 waa 4 sano maxkamadda Ethiopia tani waxay ahayd markaa waa maxkamadda shareecadda
gobolka faafan shareecada islaamka ee ku tuntay shareecada islaamka. Marka aabahay waxaa jirta laba maxkamad baa jirta, maxkamadda suuriga iyo maxkamadda shareecada islaamka. Shareecada islaamka markay qaadan weyday, qofkiina u yeedhay dhowr sannadood, indhikiina iska qoto, wax la siiyo garan maysid, 3 goor ay soo qortay war haddaad ima weydiin go-aan baan qaadanaynaa, iyadoo isburise go-aan qaadan kari weyday iyo aabahay ku furay maxkamadda dastuuriga. maxkamadda dastuuriga way fadhiisatay, xaakimna waxaa ka noqday maxamed muxmed oo lafaciisa degan. dadkan waa isku laf, inakan mooyaane isagoo laf ka yar dheer annaka. laakiin dacweysanaha waa aabahay walaalkii oo isagu qirtay iyo ninka iibsaday oo axmed xasan cumar axmed dheere la yidhahdo, oo 3 goor maxkamaddu yeedhay, 4 sano 5 sano beerta qota, nin awood sidaana lahayn ana ahayn, haddana maxkamadda wuxuu siiyo garan maysid, maxkamaddu ay go-aan qaadan weyday iyo aabahay maxkamadda furan. Marka halkan waxaa ku cad maxkamaddii baa la dhageystay November 2019, bishii 11aad 2019 iyo maxkamadda dastuuriga lafaciisa ku dhageysatay. aabahay magaalada lafaciisa oo dhan buu u yeedhay markhaati, war waa kan walaalkay wuu qirtay, waa tan warqaddii waan hayaa, ninkan 5 sano beerteedii qodanaya, ninkan kale axmed dheere la yidhahdo, magaaladiina ku markhaati furto, waa sidaasi. axmed dheerena hal markhaati keeni kari waayey, laakiin saaxiibkeen garsoore go-aan buu qaatay. haddaba markay maxkamaddu ay baadhis ku samaysay doodan, oy dhageysatay magaalada lafaciisa oo dhan iyo aabahay oo dhinaca dhageysatayna ninkaasi lafaciisa degan axmed dheere, waxay maxkamaddu ku qanacday dooda dacweysanaha axmed dheere ku qanacday, taasoo caddeeyey inay dacwadani hore uga furan tahay maxkamadda sare shareecada gobolka faafan. maxkamadda shareecada gobolka faafan ka furan tahay, dastuurigan go-aan ma qaadanayo. waxayna maxkamaddu ka soo saartay go-aankaas oo ay ku xidheen golkan. waxayna maxkamaddu amartay ciddii aan ku qanacsanayn inay qaadato rafacn. uu aamusiyey kaana. hadda qofka waxay dastuurku wuxuu dhigayaa, dastuurigu war maxkamadda marka qofka uu dhigto, muwaadinku markuu dhigto dacwad, go-aan u soo saar. laakiin go-aankii saasaa lagu aamusiyey. waa markii imisaal aan meesha kusoo caddeeyey. dhibta jirta beerta, aniga dee lacag iyo dan iyo aabahayoo dee wixii aabihii uun beste sentimental value la yidhahdo mogtay, wixii xaqdarridaa un inuu maxkamadda geemane, dad wax haystaan nahay. ujeeddada waxaan u duubayna waxa weeyaan, anuu hadli karaa, waa aragna hadlayaba youtube aan soo gelinayo, dadkoo dhan dhegeysan karaan, luqad kastan aan ku sheegi karo. laakiin dad hayn yar iyo saa maxkamaddu oona hadli karayn iyo maxkamaddu dhibtaa ku haysa. aniga oo deegaankaan ka soo jeedo, wasiirka iyo ninkan aan isdacweynayno aan u wada simannahay, wasiirka cadaaladda, hadday sida noo gashay, ka waran ninkii aanan qof ku haysan meeshaasi, awoodna ku haysan, soo maxkamaddu intaa in ka dhib badan sooma geynayso. ujeeddadan baan usoo duubayaa inaan dadkoo dhan usoo bandhigo in maxkamadda shareecada islaamka dowlad deegaanka Ethiopia dhib weyn ka jiro, si degdegna wax looga qabto. sidaa iyadoo aawadeed iyaan madaxweynaha iyaan u diray dacwado facebookiisa, waa kan waan u diray. tan muu akhrisanba, waa kaasi, waa halkaa waxay kutusaysaa inuuba akhrisanba, laakiin boggan uu leeyahay facebookan waa kaasi madaxweynaha uu akhristay. waa nin markaas ku diyaarina doorashada, dhibtiina waa hordhigay. kaale wax qabo, kaale soo jawaab ma jirto. afkii juuq qabay waa Mustafe, waa nin aan lahaynbaba waxbuu kala garanayaayo, hay-aduu kasoo shaqeeyo, dhibta Ethiopiana wuu ogyaho, aabihii wixii ku dhiciyo. ana aabahay baan u dacwinaya. waayahay, waxaan kaloo soo dhigay madaxweyne ku-xigeenka, isagoo maba akhrisanbaba. haddana waxaan sameeyey, waxaan eegay activistiyaasha dadka facebooka ku caanka. 2 nin baa ku caana Ethiopia Soomaalida, nin la yidhaahdo Samatar Jigjigaman
iyo ninka la yidhaahdo cabdirashiid cali shuca. cabdirashiid 100 goor baan u diray, isagu maba akhrisan baba. ninkan baa ugu caasan, ninkan baa ku xiga. ninka nasiib wanaag, ninkan samatar ba la yidhahdaa, wuu akhristay, wuuna ogolaaday inuu soo bandhigo. waxaan ka yidhi ha soo bandhigin imika, insha allah ayaan fasixi doona isaguna insha allah inuu dee isagu wuxuu u danaynaya waa activist, xuquuqda unbuu u dadaalaya isagu, siduu ninkanba isaguba sheegin xuquuqda un, dadka xuquuqda u dadaalaya unu yahay. marka ujeedada isagu danna igama laho, dacweysanahana dan kama laho, madaxweynahana dan kama laho. waxa weeyaan waa xuquuqda insaanka iyo xuquuqda Soomaalida unbaa waajibaysa inuu iga caawiyo. saas unbuu isagu insha allah ku sheegay. haddana saas markaan videoga soo dhigo insha allah isagana waan ka wargelin doonaa, soo bandhig baa leeyahay dacwadihii oo dhan. waxaan kaloo sameeyey haddana safaaradda Ethiopia ee London ku taala ee qurba jooga ayaan u tegey. warqad baa macal u diray intaan iyaga u tegey, iyo inanka khadar la yidhaahdo, khadar inanka la yidhaahdo yaa si fiican ii soo dhaweeyey. isagoo warqaddii ii qoraya iyo yaaluu ninka la yidhaahdo waa Ethiopian ama xaarada iyo waxa liixuya ma garanayo, iyo maybe another ethnic amba qolo kale yahay, adoo xabashida una iyaa ka horjeestay inuu ninka caawiyo. uu leeyahay Soomaalidu dad la aaminay maaha, dacwadahan iyo waxan Soomaaliya Ethiopia Jigjiga isla tagaan. waxaan u qoray safiirkan u qoray, warniyo arrintaas hayse ugu yaraan qurba joogaan he bal caawinimo taageero, maxkamadiina wata cadeymaha inii soo bandhigay, bal isiya. waxaana ku cadeynayaa inuu helay tracking item. warqadda markaan u diray way heleen safaaraddu, saxiixii waa kaasi, lambarkii waa kaasi, laakiin waa afka jooga gabal. safaaradda Ethiopia waxay u xidhan tahay xabashida, Soomaalida uma furnaba. taasina waa ogeysiin Soomaalida loo sheegayo. insha allah hadday Jigjigaan u socdaan si kooban baa kaga baxaya. waxaa kaloo dhegeysiinaya aabbahay dhowr goor ay xidhan, Jigjiga ku xidhan, oo intay macal beertiisa ka qotaan iyo tacadiyaha waana dhegeysiin doonaa.
saasaan kaga baxay insha allah. Inankaas maxamed daawud baa waa ninka maxkamadda haysta oo bare. Inankan kale dhibta keenayana waa inan ka hooseeya, laakiin waxaan u maleeyaa inay iyadoo titleka la kala sarreeye, laakiin inuu meel xigsanayo. Ninkan uu ishubaa, ninkan lafaciisa aabahayna u cagajugleenaya, xidhaya, go-aano beena soo saaraya. insha allah videoga saasaan kaga baxay. dee ninku waxa inii tuhun bes information, ma aha inaad wax kale u qaadatiin. bandhig tahayna caddays inaan soo bandhigay dhibta ka jirta maxkamadaha Soomaalida. intaa insha allah inta dee laga gaarayo xal. nabadgelyo.